markale isku soo noqod wanaagsan waxa ku bilaabanayaa filimkeena maanta waxaan aragnaa muuqaalka daruuraha ka sareeya dhulka waxaana la maqlay cod yaab leh kaasoo ka imaanaya daruuraha waxaana la leeyahay taladeedu waxay tahay inaad argagixin xaalad kasta hadda waxaan aragnaa tariir maraya goob barafley ah waxaana saarnayd gabar lagu magacaabo liisal waxay la kulantay geedida walaalkeeda ka yar kaasoo ku dhintay tareenka waxaana lagu aasay meel markaas lagu istaajiyay tareenka hadda waqtiga waa 1938 waatana liisan iyadoo markaas fadhisa gaari waxayna dhex marayaan goob barafley ah dhabaantay way u socotaa waalidkeeda cusub magaca hooyadeeda waxa waa Rosa halka abeed lagu magacaabo Hanse waxayna timid gurigeeda subaxdii xigtay Liesl abeed Hanse waxa uu garaacay qalabka muusikada waxa uu ku yiri gabadhiisa subax wanaagsan Liesl markaas wixii ka soo degtay jaraanjarta hooyadeeda ayaa markaas u sheegtay intay markaas u yeerleed abeed inay markaas iyadu u yeerto ma jeclinaan filimka ka dhaxgalo balse haddii aad weli muuqaalka iska daawanayso aadan noo laagaray soo muuqaalkeenu gaaray saaxiibo qurux badan sida adiga oo kale haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir su'aasheena maanta haddii aad garanaysid magaca rasmiga ee aktarkan nagu wada qaybta hoose ee faallada kasoo gudub muddo kadib qof ayaa albaabka soo garaacay waxa uuna wiil yar kaasoo lagu magacaabo Rada runaantii wiilkaana waxa waa saaxiibkii ugu fiicnaa ee Liesl wayna baxeen iyagoo markaas isla dhiganaya dugsiga markaana Liesl iyo Rada waxay markaas soo gaareen dugsigii iyagoo markaas fasalkooda soo galay isla waqti xadarkaasna ardayda waa ay taagnaayeen macallimada ayaa markaas hor taagneed balse macallimada ayaa markaas Liesl ku tiri kaale qor magacaaga waxaan u dhiibtay jeestadaas ee markaas magaceeda sabuurada ugu qorto Liesl waxay ahayd mid aan waxba qori karin waxayna qoraysaa wax aanan jirin ardayda markaas way ku qoslayaan laakiin macallimada ayaa ku qeelisay ardaydii iyadoo markaas ku tiri aamusa hadda waxaan ogaanaynaa inaysan Liesl aqoonin sida wax loo qoriyo sida wax loo akhriyaba kadibna Liesl iyada iyo saaxiibkeeda way soo baxeen waxayna markaas ku soo laabatay gurigeeda hooyadeeda ayaa soo gelisay gudaha habeenkii Liesl abeed ayaa u yimid isagoo markaas doonay inuu gabadhiisa dhaw habeen wanaagsan balse waxa uu arkay in Liesl hayso buug abeed Hanse ayaa markaas weydiinay adiga miyaa iskala buugan Liesl ayaa markaas ugu jawaabtay haa markaas ayuu ku yiri ma garanaysaa wax halkaan ku qoran Liesl ayaa ku jawaabtay maya maxaa yeelay aniga ma aqaan sida wax loo akhriyo abeed Hanse ayaa markaas ku yiri aniga ayaa ku wanaagsan sida wax loo akhriyo kadibna waxay bilaabeen inay akhriyaan buugii markaana waxaan aragnaa inay markaas Liesl joogto dugsiga waxayna markaas qaadayaan ama ku luuqeynayaan heesta wadanka dhanka kale waqtiga markuu ahaa November 1938 waxaan aragnaa in ciidanka ay jebinayaan muraayadaha daaqadaha suuqa iyagoo markaas dadkii ula dhaqmiyo si xun buugaag badan ay markaas wadada ku daadiyeen iyagoo markaas dadkii jirdilaya waxaan aragnaa nin yahuud isaga iyo naagtiisa waxaana lagu magacaabaa ninkaani Makis waxaana loo soo garaacay albaabka habayowna seeniya xaaskiisa isagoo markaas soo baxay waxaan dareemaynaa in sheekadaasi oo dhan ay noo akhrinayeen Liesl iyo aabaheeda markaan Liesl waxa uu aabaheeda baryaa sida wax loo qoro iyo sida wax loo akhriyaba kadibna waxa uu yiri Hanse gabadhiisa ii saaxo waxayna markaas ku tiri aabaheeda sideen ku saaxda anigoo dhan aqoonin sida wax loo qoro laakiin waxa uu ka qaaday buugii waxa uu ku yiri may raacaysaa maxaa yeelay waxaan ku hayaa wax la yaab leh wayna soo baxeen isagoo markaas gabadhiisii soo waday waxa uuna tusay inuu markaas darbeed ugu hadhay ereyada iyo xarfaha Ingiriiska waxa uuna u dhiibay jeestada isagoo markaas u fasaxay inay markaas ereyadaani qorto Liesl aad bay u jeclayd inay markaas barato akhriska iyo wax qorka sidaas awgeed aad ay u faraxday waxayna habsiisay aabaheeda iyadoo markaas ku tiri waad maasan tahay aabo intaas kadib Liesl aabaheeda qof ayaa u yimid isagoo markaas albaabka soo garaacay markaana Hanse waxa uu degdeg u imaanaya qofkii markaas albaabka soo garaacayay waxa uu ku yiri ziyaare saan ugu qayb qaadano dhoolotuska waxayna xilli habeenna dhammaan dadka magaalada ayaa markaas isku soo baxay waxayna dadkii bilaabeen inay u dabaaldegaan dhoolotuskooda waxaana halkaas khudbad ka jeedinaya sargaal ciidanna waxa uuna aaminsan yahay inay markaana wax walba dawladooda u hagaagi doonto oo ayna ka bixi doonaan dhibaatada ay hadda ku jiraan waxa uuna u sheegayaa shacabkii inay marka koowaad naftooda nadiifiyaan oo inay wanaajiyaan akhlaaqdooda iyo aqligoodaba waxa uuna leeyahay waxbarashada iyo masrax iyo suugaanta iyo filimaanta waa wax ugu badan ee taageeraya ummadeena waxa uuna markaas leeyahay askarigii tani waxay sabab kartaa inaan markaas ka xorowno gumeysiga waxayna markaas halkaas ku gubeen buugaag fara badan waxa uuna ku yiri waanan xididada u siibnaa xanuunka ku dhacay dawladeena inkastoo dawladeedu ay tahay Jarmalka waxayna filimka ku mataliyaan inay markaana ku jiraan dagaalkii labaad ee adduunka waxa uuna leeyahay waxaan wajihi doonaa cadawgeena haddii uu dagaal dhaco waxaan u istaagi doonaa mustaqbalkeena ilaa aan ka helno guusha kama dambaysta ah dagaalka caynkaas wax uu baabiin doonaa cadawgeena waxaan halkaas joogay Liesl iyadoo markaas u dhageysanaysa si feejigan dadkii oo dhanna waxay markaas ku dhawaaqayaan inay markaas ku raacsan yihiin sargaalka ayaa markaas sidoo kale sheegay inuu markaas baabiin doono dhammaan shuuciyada yahuudiga waxaana markaas yiri waxaan jeexi doonaa wadadii hore oo noo fidiyay geesigii weynaa ee Jarmalka ee Adolf Hitler markaas dadkii oo dhan waxay bilaabeen inay heesaan iyagoo markaas ku heesaya heestii markaas kacaankooda ahayd waqti yar kadib qof kasta waa uu baxaya
liisna markaasi waxay tagtay goobtii buugaagta lagu gubayay waxayna halkaasi ka soo qaadanaysaa buug intay lisan halkaasi joogtay waxaa halkaas ugu imaanaya aabaheeda Hansi waxa uuna leeyahay maxaad halkaani ka haysaa waxaan ku ballanay inaad xaafadda aado markaan iyada waxay qarinaysaa buuggii waayna soo baxayaan iyagoo markaasi soo dhaqaajinaya intay markaan lisan iyo aabaheeda ay markaan isla socdeen waxaa markaas lisan ka dhacaya buuggii waxaana markaas buuggii ka qaadaya aabaheeda Hansi waxaana markaas qarinayaa buuggii waxaana markaas lisan weydiinaysaa su'aalo badan iyadoo markaas dhahaysa runtii ii sheeg hooyadeeda miyay shuuci ahayd miyuu ahaa Hitler kii dilay hooyadeeda waxayna markaas leedahay waa nacba Hitler Hansi markaas waxa uu diiday inay markaas arrintaani qof kale ka hor sheegto maxaa yeelay haddii arrintan lagu maqlo waxay halis u tahay in qoorta laga jaro markaana waxay ku soo laabteen gurigoodii Hansi markaan wax uu bilaabay inuu markaan gabadhiisii la akhriyo buugga si lama filaana intay buugga akhrinayeen wax albaabka u soo garaacay nin dhammaantay ninkaas waxa waa Makis kaas oo dagaalyahankii ugu horreeyay ee Yahuudiga ahaa waxaan markaas weydiisanaya caawinaad iyo inay caawiyaan laakiin ninkii wax uu bilaabay inuu dhaco maxaa yeelay tabartii oo dhan ayaa ka dhamaatay waxayna markaas qabteen ninkiisa ay markaas garab u siiyaan markaana waa kan Hansi isagoo markaas u yimid gabadhiisa Hansi waxa uu sheegay gabadhiisa Makis aabiis inuu ku dhintay digaal isagoo markaas naftiisa u horeeyay reerkiisa waxa uuna ku yiri lisan iga ballan qaad inaadan cidna u sheegin inuu halkaani joogo ninkan Makis Makisna halkaas ayuu jiifay iyagoo markaas halkaas ku dabiibaya lisan markaas waxay damaanad qaadaysaa inay markaas ilaali doonto oo aysan qofna u sheegi doonin ayna biri aadi doonto dugsigeeda markaana waxay soo aaday dugsigeeda iyada iyo markaas saaxiibkeeda Red ayaa markaas wada ciyaaraya intaas kadib gabadhii lisan waxay markaas ku soo laabanaysaa gurigeeda markaana waxa la gaaray habeenkii lisanna waa ay jiifanaysaa intay jiiftay ayaa markaas waxay arkaysaa in markaana ninkii Yahuudiga ah ee Makis oo markaas haya buuggeedii waxayna markaas ka soo qaadanaysaa buuggii waxaana markaas ku soo kacaya ninkii Makis ahaa lisan ayaa markaas weydiinaysa miyaad iska qarinaysaa Hitler adigana shuuci miyaad tahay miyayna dileen hooyadaada Makis ayaa markaas ugu jeeday maya aniga waxaan ahay Yahuudi subaxdii xigtay Rosa waxay markaas u imaanaysaa gabadheeda Lisa waxayna markaas u xilsaaraysaa shaqo iyadoo markaas u diraysa inay markaas dharka dhaqdo muddo yar kadib waxaa markaas lisan u imaanaysa saaxiibkeeda Radi waxayna markaas bilaabay inay soo wada baxaan waxayna markaan ugu dambeyntii soo aadayaan maktabadda naag ayaa markaas soo gelinaysa gudaha maktabadda iyadoo markaas ku eesha soo gala waxayna markaan lisan xiisinaysaa inay markaas ogaato wax ku saabsan waxbarashada markii ay gudaha soo gashay waxay markaana bilowday inay markaas taataabato buugaagtii waxay markaas dareemaysaa farxad aad u daran waxayna markaas soo qabatay buug markaas loogu magac daray The Dream Killer waxayna markaas xasuusanaysaa in markaas Radi uu ku sugayo banaanka si ay markaas u baxdo ayaa islaantii waxay u sheegaysaa inay markaas doonayso inay baxdo laakiin islaanta ayaa markaas ku leeysa waad bixi kartaa xilligii aad doonto ayaad buuggan u imaan kartaa si aad markaas u akhrisato arrintaas aad ay ugu farxday iyadoo markaas ka soo tagtay hadda waxaan aragnaa Makis kaasoo markaas la geeyay qolka hoose sababtoo ah qoyska Hansi ayaa markaas ka baqay inay markaas soo weeraraan askarta sababtoo ah Makis waxa uu ahaa Yahuudi lisan ayaa sidoo kale markaas waxay aadaysaa qaybta hoose waxayna markaas sii wadaa lisan inay markaas sabuurada ku qorato waxyaabo fara badan kuwaasoo ay ka mid ahayeen kelmado cusub kuwaasoo had iyo jeer ay ku qori jirtay sabuurada Makis ayaa markaas weydiinaysa xageed ka heshaa erayadan lisan ayaa markaas ku dhehaysa arrintaani waa arrin sir ah kadibna waxay markaas u muujinaysaa meesha ay markaas ka soo akhrista buugaagta markaana ninkii Makis waxa wada sheekaysi dheer la qaadanaya gabadhii lisan ahayd isagoo markaas u sheegay inuu markaas yaraantiisii aaminsanaa in markaan ay isku mid yihiin dadka iyo xoolaha maxaa yeelay markaan yaraa waxay u soo tarbiyeyn jiray waalidkayga intaas kadib markii ay cabaar wada sheekaysteen waa uu saaxanayaa ninkii Makis ahaa laakiin inta uusan saaxanin ka hor waxaa markaas buug siinayaa gabadhii lisan markaana waxay bilaabaysaa inay markaas akhriso buuggii kadibna lisan waa ay soo bixisa iyadoo markaas soo aadaysa maktabadda waxay markaas si qarsooda ugu soo xadaysaa buug sababtoo ah maktabaddii waxaa joogay naagtii markaas uga tagaysay ninkeeda waxayna ka soo xadaysaa buug iyadoo markaas guriga imaanaysa waxayna markaana bilaabaysaa inay buuggii akhrisato waxayna markaana maalin kasta sii wadaa inay markaas soo xado buugaag waxaana markaas arkaya saaxiibkeeda Radi hadda askar badan ayaa halkaas imaanaysa si ay markaas u hubiyaan inuu halkaani joogo ninka Yahuudiga ah ama shuuciga ahaa qoyska lisan markaas waa ay fiijigan yihiin markaan askartii waxay dadkii ku amrayaan inay markaana boorsooyinkeedii soo qaataan oo halkaana isaga cararaan maxaa yeelay halkaana waxaa laga yaabaa inay markaas ku soo weeraraan ciidanka markaana ninkii Makis waxuu markaana dareemaya inay markaana magaalada cidlo tahay waa uuna soo baxaya isagoo markaas soo dhaqaajinaya intuu markaas halkaasi taagan oo meelaha fiirinaya ayaa wax u arkaya baabuur ku soo wajahan waa uuna ka dhuumanaya baabuurkii inkastoo markaas gabadhii lisan oo horey u soo sheegay inuu markaana isaga bixi doono laakiin gabadhii lisan ahayd arrintaas aad ay ugu murugaysaa iyadoo markaas aanan ogolan inuu markaas ka tago ninkaani Makis markaana waxaan aragnaa wiilkii Radi oo markaas la jooga askarta waxaana markaana waraaqad u soo dhiibaya ninkii askariga ahaa waa uuna soo cararaya wiilkii yaraa isagoo markaas waraaqad u keenaya ninkii Hansi ahaa ninkii Hansi waxuu markaana bilaabay inuu waraaqadii akhriyo wuxuuna markaan ogaanaya inay markaan isagii ciidamada dalbadeen wuxuuna markaana ka qayb geli doonaa weerarka ay markaas qaadi doonaan ciidamada
waxaana markaas habsiinaya gabadhiisa isagoo markaas shuminaya waxaana markaas raacaya tareenka isagoo markaas dhaqaajinaya markaana waatna lisan iyadoo markaas akhrisanaysa buugii aad ayayna u murugsan tahay maadaama markaas uu ka tagay aabaheeda maalintii xigtay iyada iyo saaxiibkeeda usri joog waxaa markaasi soo laabanaya aabaheeda aad ayayna ugu farxaysaa maadaama uu aabaheeda u soo laabtay wayna ku cararaysa aabaheeda iyadoo markaas habsiinaysa maadaama uu dagaalkii ka soo laabtay markaana waxay ku soo laabteen gurigooda waxaana markaan aabeed hanse bilaabya inuu markaana su'aalo ka weydiiyey wax ku saabsan Marcus laakiin lisan ayaa u sheegaysa inay markaas wax qabaara ka haynin maalintii xigtay waxaa burburaya dhammaan guryihii magaalada waxaana halkaas ka dhacaya burbur aanan caadi ahayn markaan askartii waxay bilaabeen inay markaana raadiyaan dadkii meydka iyo dadkii dhintay askartii markaana waxay halkaas ka helayaan lisan oo nool markaana lisan waa ay badbaadiyay iyadoo markaas ka badbaadiyay dhibaatadii dhacday intay markaas ay askartii wadaan waxay markaas soo xasuusanaysaa hadaladii markaas uu dhahay aabaheeda waxaana halkaas ku arkaysaa meedad yaalla waxaana markaana soo qaadanaysaa buuggeedii oo markaas carray ka buuxsantay waxaana markaas soo xasuusanaysaa islaanta markaas ay ka soo qaadanaysay buuggii laakiin isla markiiba waxaa halkaas ugu imaanaysa islaantii markaana liisal islaanta ayay kusoo cararaysaa iyadoo markaas habsiinaysa markaana 2 sano kadib sanadku markuu ahaa 1945 waxayna markaan lisan joogtaa guriga markaas islaantii soo wadaysay markaana lisan intay gurigii joogtay waxaa halkaas ugu imaanaya ninkii Marcus ahaa wayna soo cararaysaa iyadoo markaas habsiinaysa ninkii Marcus ahaa aad ayayna ugu farxday araggiisa markaana ciidamadii Mareykanka ayaa markaas la wareegay Jarmalka waxaana halkaas ku dhamaanaya filimkii maanta muuqaalkeena waxa waa mid aad u xiiso badan intaan muuqaalkaana mid ka xiiso badan kulmi doono sidaas iyo nabadiino